kusoo dhawow waa casharkii saddexaad ee Microsoft Windows 10 oo aan ugu talagalnay dhammaan dadka daneynaya barashada Windows 10. casharkii hore waxaan kusoo baranay sida loo sameeyo folder, make a folder, qaabka folder loo sameeyo waxaan kusoo aragnay casharkii kan ka horreeyay. casharkanna waxaan ku baran doonaa how to name a folder, sida folder magac loogu baxsado. Okay, aan isla soconno markii aad rabtid folder in abuurno waxaan kii hore kusoo qaadanay waxaan sameynaynay shaashada meel banaan tag, right click ku dheh, waxaa kasii dooranaya new, dabadeed waxaa aadaysaa folder. saas maxay ugu abuurmay folder cusub. magaca marka ciwaanka aan hadda videogan uga hadlayno waxaa waaye sida magac loogu sameeyo. hadda ciwaankeena ayaa taaganahay si aan magac ugu samaysatid marka waxaa sameynaysaa markii aad dooratid oo new ah kasoo dooratid oo saan kugu soo baxo waxaa sameyn kartaa magacaan oo new folder ka ah waa ka bedelaysaa isla markii keyboardkaaga tag waxaa ku qoraysaa magacii aad rabtid. hadda anaga magacaan u baxsan waxaa u baxsanaynaa documents u baxsanay enter dhaadhe enter markaa dhahayd oo ku magacii ayuu qaadanayaa. hadda folder abuurnay magaca u baxsanayna waa documents. bal mid kale aan abuurno meel banaan ayaa right click ku dhahay, new ayaan ka dooranaa, kadib waxaan kasii dooranayaa folder. kanna maxaa u baxsanayaa waxaa u baxsanayaa videos, enter dheh. okay, folderkan document u baxsaday, kanna video. bal mid saddexaad aan abuuro meel banaan ku dhuftay, new aa dhahay, maxaa kasii doortay folder. kanna maxaa u baxsanayaa music, wixii code aan ugu talagalay. mid saddexaad bal aan sameeyaa hadane mid afraad waxaan tegayaa new, waxaan kasii dooranayaa folder. kanna maxaa u baxsanayaa pictures, sawiradii. maxaa afar folder u abuuraya maxaa u kalifayo mar la arkaba adiga ayaa xadidi kara inta folder aa u baahan tahay. haddii aad 10 u baahan tahay, haddii aad 5 u baahan tahay, haddii aad 4 u baahan tahay, inta u baahan tahay adiga ayay kugu xiran tahay iyo rabitaankaaga iyo xogta aad rabtid inaad keedisid nooca ay tahay. tusaale ahaan aniga hadda waxaan 4 folder u abuuray inaan ku kala keediyo wixii documents inaan folderkan ku keediyo, wixii video ahna inaan ku keediyo folderkan, wixii music ama cod ahna inaan folderkan la soo aado, wixii sawirana inaan kan la aado. aniga saas ayaan u abuuray 4 document si aan xogteeda u kala saaro uusan isku dhaxyaac ugu imaanin. okay, maxay iga caawinaysaa marka waxay ka caawinaysaa hadhow tusaale ahaan markii aad rabtid xogtaada inaad dib u raadisid waqti badan kugu qaadanaysa si fudud ayaad ku raadin karaysaa. maxaa yeelay wixii document meesha ku yaalin waa taqaanaa, wixii video waa taqaanaa, way ku kala saaran yihiin. marka taasina waxay ka caawinaysaa isku dhaxyaac iyo inay xogtaada isku noqoto mid oo aan habeysnayn oo arrange aysan lahayn. sidaa darteed marka waxaa adiga samaysan kartaa ilaa folders inta aad doonto adiga ayaa samaysan kara. casharka kan xiga waxaan ku kulmin doonaa sida magaca looga bedeshto, how to rename a folder. waxaa inoo ballanay casharka xiga inta aan midkaas ku kulmi doono waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. waxaa inoo ballanay casharka xiga insha Allah.